xogayaha qorsheynta xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay xidhnaanshaha xuduudda u dhaxeeya dalalka Soomaaliland iyo Djibouti oo nasiib darro ku tilmaamay in dal dhisan oo leh nidaam iyo shuruuc gooni ah haddana la yiraahdo waxa xidhan xuduudahoodii. Injineer Cabdirashiid Riyaraac xogayaha qorsheynta xisbiga mucaaridka ee wadani oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri runtii waxaanu aragnaa nasiib darro in dal dhisan oo xukuumad leh oo system leh la yiraaho xuduudihiiniba laydinku xidhay. waxaanu aragnaa ceeb xukuumadda Soomaaliland iyo madaxda Soomaaliland ee dul hoganaysa. waxaanu aragnaa in deexil gudasho la'aan xukuumadda ay sababtay. waxaan leenahay wasiirada hanjabeeye ama ka arrimaha gudaha ha ahaado ama kuwa kaleba ha ahaadaan meel walba la taagan suurka la afuufaya inay dalka iyo mas'uuliyadda hayaan ku fekeraan oo ay ma garanaysaa intay hanjabaad oo la soo fadhiisanayaan xusbiyada qaranka iyo shacabka Soomaaliland ay runtii eegaan waxa harrooda yaalla iyo waxa ku dhacay iyo xuduudaha ay u jeestaan oo ay gutaan xilkii ummadanu u idmatay oo aanu aragno inay ka baaqsadeen. isku soo wada duubo hadalka xogayaha qorsheynta xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa ku soo beegmaya iyadoo ilaa iyo weli uu xidhan yahay xuduudka u dhaxeeya dalalka Soomaaliland iyo Djibouti oo loo xidhay xaalada amni. Khalid Bushaawi, Somaliland Space Channel, Hargeysa.